cibaado kasta aynu samayno hadday xaj tahay hadday cumro tahay hadday salaad tahay hadday soon tahay iyo hadday sadaqad tahay hadday cibaado kale tahayba waxaynu rajaynaynaa in Allah inaga aqbalo subxaanahu wa tacaala laakiin shuruud ama asbaab ama waxyaabo bay culimmadu tilmaamaan sababa in qofka cibaadada laga aqbalo cibaadada waa wada samaynaa laakiin kuma cibaadadiisa la aqbalay Allah og subxaanahu wa tacaala sida awgeed baa waxaa laga sheegaa salafkii saxaabadii rag ka mid ah layta shacri man ilmaqbuulu fanuhniih waman ilmaxruumu fanucaziih waxaa laga sheegaa caliy bn abi aalib inuu odhan jiray ee waa kuma qofka talow laga aqbalay camalka aynu tahniyadayne waase kuma ka laga xaaraam yeelay in laga aqbalo aan tacziya aan u dhigne ibnu mascuudna waxaa laga sheegi jiray inuu odhan jiray weertaa ku dhodhow waa ayuha almaqbuulu hanii'an lak ayuha almarduudu jabbar allahu musiibatak ka cibaadaadka laga aqbalayow bogaadin baa kuu sugnaatay ka camalkiisii la soo celiyayow musiibadaada allaha kuu kabo buu odhan jiray taa macnaheedu waxa weeyaan camalka waynu wada samaynaynaa laakiin qubuulku xagga alluu ku xidhan yihi qofka mu'minkaana waxa ugu weyne uu ka fakeraa waxay weeyaan camalka yaridiisa maaha iyo badnidiisa waa camalka qubuulkiisa ilmo nebi aadam oo dadkii ugu horreeyey rabbi inooga qisoodo aabbahood dabadooda markii ay qurbaanka geysteen midna waa laga aqbalay midna lagama aqbalin kii laga aqbalay ilaahay wuxuu ku tilmaamaya innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin ilaahay wuxuu wax ka aqbalaa kuwa alle ka cabsada qubuulka waxa gaadha dadka mansilatu taqwa gaadhay ayaa gaadha aakhiro aad bay u naxdin badantay inaad timaaddo adigoo khayr rajaynayay laakiin lagu yidhaha waxaagii waxba kama jiraan dad badan oo gaaladu u badanta ilaahay wuxuu leeyay waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajcalnaahu habaa'an manhuura waxaanu u soo horumarinay buu ilaahay leeyay wixii shaqo ay shaqaysteen waxaananu ka yeelaa maxay habaa'an manhuura boodh la saydhiyey ama siiga la saydhiyey qof camal sameeyo islaha waa la aqbalay oo aakhire markuu tago wixii uu rajaynayay waxaan ahayni ka soo horbaxaan ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyay qul hal nunabbi'ukum bilakhsariina acmaala ma idiin sheegaa kuwa camalkoodu hoogay khasaaray aladiina dalla sacyuhum fi lxayaati addunya wahum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sunca waa kuwa adduunka intay joogeenba camalkoodu lumo aan la aqbalin iyagu se moodayay in acmaasha laga aqbalay idan ayuha alaxiba ilaahay wuxuu leeyahy waman araada alaakhira wasacaa laha sacyaha wa huwa mu'min faulaa'ika kaana sacyuhum mashkuura ninka aakhiro doonaya acmaashiisa ibtiqaa'i wajhi illaahi ku doonaya oo aakhiro u shaqaystay wasacaa laha sacyaha camalka aakhiro la aqbalana la yimi isagoo mu'mina faulaa'ika kaana sacyuhum mashkuura kuwaa sacyigoodu waa mashkuur ay maqbuul waa mid looga mahadnaqo waa mid alle subxaanahu wa tacaala ka abaalmariyo haddaba ayuha alaxiba ilaahay subxaanahu wa tacaala waa haniyun can acmaalina marka hore waxaynu shaqaynayno o dhan ilaahay hani buu ka yihi laakiin waxa aynu samaynayno ilaahay wuxuu leeyahy waan idinka shukri naqaya waa idinka abaal marinaya ilaahayna wuxuu ina leeyahy waman yashkur fainamaa yashkuru linafsi ninka alle subxaanahu wa tacaala u mahadnaqee taacadiisa sidii ula yimaada waa camalkaa abaalmarkeeda adaa iskale baa ilaahay leeyahy waman kafar faina allaha haniyun xamiid ciddiisa ka gaalowda ilaahay hani buu ka yahy waana ka maarmaa in takfuruu faina allaha haniyun cankum walaa yardaa licibaadihi اlkufr wain tashkuruu yardahu lakum haddaa gaalowdaan ama ilaahay nicmadiisa dafirtaan ilaahay hani buu idinka yahy baa la yidhi isla markaana idinlama jecla gaalnimada haddaa shukri naqdaanna yardahu lakum raalluu idinka noqonaya haddaba qofka mu'minka ah
waxa saaran camalka intaanu samayn iyo markuu ku dhex jiro iyo markuu dhammeeyaba waxa uu ka warwaraa waxa weeyaan camalkani ma yahay mid alle talow raalli ka iyo aqbalaya waa isagoo daaco ah ayaad haddana isweydiinaysaa ilaahay subxaana wa tacaala ma kaa aqbalaya dadkii muuminiinta ahay mushfiqiin waxay ka ahayeen camalkooda ilaahay qur-aanka wuxuu leeyay waladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajila annahum ilaa rabbihim raajicuun waladiina yu'tuun ay yucطuun kuwa bixinaya baa la yidhi maa aatow waxay bixinayaan ee sadaqa ah ee acmaal saalixa ah waxay wanaag la imanayaan kuwa la yimi wa quluubuhum wajila iyadoo qalbiyadoodu ay cabsanayaan baa ilaahay yidhi wuxuu samaynayaana waa taaco haddana cabsi baa ku jirto cabsidu xaggay ka timi talow rabbi ma kaa aqbali buu ka cabsanaya caaisha radia allahu canha wa can abiha ayaa waxay tidhi ilaahay rasuulkiisa waxay weydiisay aayadatan ilaahay rasuulkiisa ubay tidhi aayaddan ilaahay leeyay waladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajilatun annahum ilaa rabbihim raajicuun ahum yashrabuuna alkhamra wayasriquun kuwa kani ma kuwa khamrigana caba ee tuugadana sameeyaa oo markaa ninkii xumuu samaynaya wuxuu isleeyay ta waxan yar ma laga aqbali doonaa uu la yimi wuxuu nabigu ku yidhi laa ya binta sidiiq kuwa maaha kuwa laga hadlaya walaakinahum aladiina yasuumuun wayusalluun wayatasaddaquun wahum yakhaafuuna an laa yuqbala minhum nabigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam waa kuwa soomaya oo tukanaya oo sadaqo la baxaya oo welina cabsiyi ku jirto ilaahay ma idinka aqbali doona ulaa'ika yusaaricuuna fi lkhayraat baa ilaahay yidhi marka kuwa cabsidaa qaba waa kuwa khayrka u degdegaya baa rabbi leeyahy subxaanaه wa tacaala xadiidka tirmidi ibni maaja baa warinaya sheekh ilalbaanina saxiix buu ku tilmaamaya haddaba ayuha alaxiba makriga ilaahay ma aaminaan duul khasaaray mooyaane saxaabada isku hallayn may qabin iyagoo camalkaa samaynaya tirada badan labay haddana cabsanaya innaga laakiin waxaad moodaa qofkii waxoogaa dadka ka yara salaad bata ama ka gadisnaada inuu is idhaahdo adigu ahlu jannaa waaweyn baad ka mid tahay adigu kolley dee dadkan oo dhan waad ka fiicanto ahlu saxwahaa tahay ama qoladii diinta u shaqaynaysay baa tahay inuu iska dhaadhiciyo nacam waa fiicantay in diinta loo shaqeeyo waa fiicantay in salaad la tuko waa fiicantay laakiin qofka muslimka ah afa aaminuu makra allahi falaa ya'manu makra allahi ila alqawmu alkhaasiruun baa ilahay ma ilaahay makrigiisa ay aamineen ilaahay ma aamino makrigiisa duul khasaaray mooyaane nebi ibraahim oo nebiya oo rasuula oo camal samaynaya ayaa haddana wuxuu leeyahy waladii aطmacu an yakfira lii khatii'atii yowma ddiin ilaahay baan hunguraynayaa buu leeyahy inuu dembigayga dhaafo maalinta qiyaama waa amac waa hunguri yacni anigu wixii aan awoodayay waan sameeyey welina ilaahay baan ka rajo qabaa buu leeyahy inuu alle subxaana wa tacaala iga aqbalo isagoo nebi ibraahima ayuu ilaahay baryay ilaahay inuu shirkiga ka fogeeyo wajnubnii wabaniya an nacbud alasnaam idan ducada qofka mu'minkii marnaba kama maarno inaad ilaahay ka magan gasho gaalnimo munaafiqnimo riyaa iyo sumca iyo istusin inaad ilaahay weydiisato inuu acmaasha ka aqbalo sadaqa iyo soon iyo salaad iyo waxaad samayso qur-aanku dadka saalixiintaa markuu ka warramayo wuxuu ka warramayaa iyagoo cibaadaad cajab qaba la imanayay haddana ku kabayay ducada والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا marka laga soo bilaabo ilaahay cibaad الرحمن mu ka warrama sifaat ay leeyihiin oo wada wanaagsan baa ayuu ka warrama ilaahay wuxuu ku tilmaamay sifaadkooda inuu ka mid yahay والذين يبيتون لربهم سجدا kuwa habeenkii habeensanaya iyagoo rabbigood u sujuudsan oo qaa'ima habeenkoodu waa salaad ay ku dhamaystaan haddana ilaahay wuxuu raaciyey والذيina yaquuluuna rabbana اsrif cana cadaaba jahannam waa kuwa ku ducaysanaya barya ilah cadaabka jahannamana weydaari acmaashiisaas saalixa ah baryaa daba socota aman huwa qaanitun anaaءa alleyli saajida waqaa'ima yaxdaru اlآakhira wayarjuu raxmata rabbi miyay simayin baa ilaahay leeyihi ku habeenoo dhan taagan oo sujuudsan oo qunuud ku jira oo alle baryaya
haddana baa ilaahay leeya yaxdaru alaakhira aakhiru haddana ka cabsi qabaa weli wayarjuu raxmata rabbi ilaahay naxariistiisana hunguri baa ka hayo wuu rajaynaya yacni camalkiisoo qura kuma kaaftoomine waxa uu la socda warwarkan iyo cabsida tan qofka muslimkaa waxa saaran markaas bay culammadu yidhaahdaan hadduu qofku sidaa u fakero oo aanu garanaynin daacaadkiisa inta la aqbalaya inta kale acmaasha uu sameeyo dhammaanteed way la yar tahay qofka aan waxaasi ogeynina wuxuu sameeyey way la tiro badan yihin dabeetana waxaa ku dhaca alcujb iyo alistigtaa way la badataa wuxuu is leeyahay adigu dee wax badan baad samaysaa shaqo badan baad haysaa wuxuu moodaa inuu dadka kale wax dheer yahay saa daraaddeed baa qofka muslimkaa waxaa laga rabaa inuu fii janbi illaahi uu yidhaahdo acmaashaan ilaahay geystay waa wax yar marka loo eego ilahay wuxuu nimco ku siiyey ilahay wuxuu nimco ku siiyey marka loo eego waa wax yar haddii layna yidhaahdo oxygeentaynu neefsanaa laydinka iibinaya ka warran haddii lagu yidhahdo wardi baa lagaaga iibinaya subxaan allah dee maantii o dhan shaqo kale maad qabateen subxaan allah oo intaad huruddo marka ayaa kaa iibinaya marka ila markaad seexatana subxaan allah odhan kari maysay mujarad haddii lagu yidhahdo subxaan allah bas siiso idan qofka muslimka ah ilaahay wuxuu nebi maxamed u tilmaamaya walaa tamnun tastaktir alxasan albasri baa wuxuu leeyahy laa tamnun bicamalik calaa rabbik tastaktiru ha sheegsheegan camalkaaga adigoo moodaya inuu wax badan yahay ilaahay ha u sheegsheegan baa la leeyahy kan baanu samaynay waxan baanu qaban ilaahay ha u sheegsheegan baa la leeyahy waxaad la timi waa wax yarun mar haddii fii janbi illaahi loo eego ilaahay qofka garanaya ee weynidiisa garanaya ee wuxuu xaq inoogu leeyahay garanaya wuxuu sameeyey way la yartay intay doontaba ha leekaatee haddaba ayuha alaxiba ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu acmaasha saalixa inaga aqbalo waxaynu dartii u qabanayno in rabbi subxaana wa tacaala inaga aqbalo rabbi waa kariimun xayiyun ilaahay wuxuu isku tilmaamay mid deeq badan oo xishood badan inuu yahay oo addoon gacmaha u soo taagay aan ku celinin ee ka aqbala haddaynu ilaahay baryadiisa badinno rabbi ariiqa saxaa wayna tusaya aan ilaahay barino subxaana wa tacaala dadaalkana aan badsanno sala allahu calaa muxamedin wala alihi wasaxbi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin